بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xaashiis waxaa shay ku nool magaalada Hargeysa ahna arday dhigta jaamacadda Hargeysa runtii haddaan dareenkayga halkan ka sheega ama aragtidayda ku aadan Cabdimaalik Musocdoon xarigiisa run ahaantii waxaan qabaa san xarigan loo geystay Cabdimaalik Musocdoon haddii uu yahay sax iyo haddii uu qalad yahay todobada cashir rumaanka ka bacdi bay xukuumaddu kala sheegi kartaa todobada cashir ka bacdi haddii waxa lagu xidhay tahay waxa ka soo horjeeda qadiyadda Soomaaliland waan ku taageersanahay haddaan ahayna oo lagu xiray taageerida ama uu hambalyeynta madaxweynaha Soomaaliya qalad baan u arkaa way madaxweynaha Soomaaliyeed waa halkan looga hambalyeeyay ka Djibouti dadkii tagay ee ka qayb galay xafladii cali masaarkiisa waa looga hambalyeeyay madaxdeena kamid ahayd marka Soomaaliya waxaan u arkaa ma jirto in madaxweyne Soomaaliyeed la doortay loo hambalyeeyo marka aragti ahaanteeda waxaan qabaa runtii taa ay ka gaadhay maxkamaddu waa dawlad baa jirta dawladda aragtideedu ma la qabaa haddaan sheegnahay aad u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ridwaan Maxamed Cabdi dhigta jaamacadda Hargeysa kulliyadda architecture-ka Al-Jazeera News-na baan u mahadnaqayaa aragtidayda haddii aan si kooban uga dhiibo anigu wuxuun baan u arkaa nin saxafiya maxay tahay wuxuu dabageli karaa taariikho dahsoon waxyaabo ma garanaysa ummadda oo saxafinimadu dee waa in ma garanaysa waxyaabo xogaha dadka ka qarsoon oo garan ma garanaysa la raad raaco la dabagalo iyo aasaarta saxafi madax banaayay hadduu Djibouti tagay hadduu Somaliland tagaba dee siyaasiyiinteenu maxay tahay waxyaabo fara badan kale ayadana kale ayay ka soo ansixistaan baasaboorka sitaan ma odhan karno waddan walba ay kala degaan waa Somaliland International baa ku qoran Soomaaliya baasaboorkeedu baa maxay tahay lagu tagaa Caraba marka in horta taa lagu qabsado maaha haddii ay wax kale jirto laakiin ma sheegin oo ay jirto dawlado kale oo gaar ah lagu soo ogay laakiin Cabdimaalik Musocdoon waxaan u aqoonsanahay shakhsi muwaadin reer Somaliland dabagala xaqiiqooyinka hadday tahay tii beriga hore lagu xidhayna sax ay ahayd waliba oo ah waxyaabaha ummadda laga qarinayo muraayadan laga qariyo xaggeeda dambe layna tusayo inuu muujiyo marka wax weeyaan ku dheeraan intaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Saciid Abdikariim Xaashi Allaale waxaan dhigtaa kulliyadda architecture design and urban plan jaamacadda Hargeysa ayaan dhigtaa kulliyadda architecture-ka Cabdimaalik waa saxafi madax bannaan waa la xidhi karaa saxafi waa la xidhi karaa laakiin wax cad ayaa lagu xidhi karaa wax sharciga ka soo horjeeda lagu xidhi karaa hadda Cabdimaalik ma odhan karo xadhigiisu waa sax qaladna ma odhan karo laakiin waxaan inii sheegayaa inaanay cidna sharciga ka sarreyn cidna aanay dhaafsanayn sharciga qofkuna maaha macsuum waa la tuhmi karaa waa la xidhi karaa qofka cidna sharciga kama sarreyso aad baad mahadsantihiin Al Jazeera News aad baan ku mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum.